sameeyaa company-ga waxa dhaqaale looga sameeyaa laba nooc nooca koobaad ee dhaqaale looga sameeyo waa inaad wakiil u noqoto oo alaabta company-ga aad sii suuqayso oo sii tafaariiqayso adigoo faa'iido wanaagsan ka samayn doona alaabta company-guna faa'iido macquul ah ayuu ku ogolyahay inaad ka samayso adigoo wakiil noqonaya magaca company-ga wakiil uga noqonaya alaabtan oo ku iibinaya laakiin waa inaad shuruudaad buuxiso company-ga aad ka mid tahay oo gudaha soo gashay marka koobaad oo xubin ka mid ah aad tahay weeyaan sidoo kale waxaad company-ga dhaqaale aad uga samayn kartaa inaad walaalo kale oo iyagana wakiila ah aad u yeedho oo company-gii aad uga faa'iideyso oo aad ku soo jiido inay shaqaystaan iyaguna markaad walaalahaasi iyagana ay company-ga ka faa'iideystaan adigana company-ga wuxuu kuu soo dirayaa lacag ama bonus buu kuu soo diraya haddaba maxaa ka mid ah faa'iidooyinka dhanka alaabta laga sameeyo company-gu wuxuu ku siinayaa faa'iido u dhaxaysa 5% ilaa 8% inta u dhaxaysa ayuu ku ogol yahay waxaanay kolba ku xidhan tahay darajada aad company-ga aad kaga jirto ayay walaalayaal ku xidhan tahay maasha Allah tabarakallah maxaa ka mid ah sidoo kale faa'iidooyinka aad ka heli karto inaad walaalo kalena aad company-ga ku soo xidho ama aad team dhisto maxaa ka mid ah waxa ka mid ah kow waxaad ka samayn faa'iido aan xadidnayn okay laba waxaad ku shaqaysan kartaa waqti alla waqtigaad jeceshahay okay cid ku maamulaysa ma jirto halkan adiga iska u shaqaysanaya saddex adduunka oo dhan baanu laysan ku siinaynaa meel walbana waad uga shaqaysan kartaa biidnillaahi tacaala afar waxaan ku siinaynaa tababar ayaanu ku siinaynaa iyo weliba caawimaad ayaanu walaalayaal ku siinaynaa biidnillaahi tacaala tababarkaasoo kaa caawinaya inaad ganacsigan ku guulaysato biidnillaahi tacaala system fudud oo aad raacayso ayaa jira oo company-ga ku ogolaanaya inaad muddo kooban meel wanaagsan aad uga gaadho haddaba markaad company-gan ku maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah walaalayaal number 1 aad u noqoto iminka yaa saabunta yaa ku macmiila daawadilka ayaa ku macmiila alaabaha guriga looga soo iibsaday baad ka iibsataa soo ma qof isaguba soo iibsaday oo isagu jumlad bixiye ka soo iibsaday ayaad ka iibsataa waxa laga yaabaa markaad qof company-ga ku jira haddaan caawa company-ga soo galin inaad alaabtiisa ka iibsato qof isaguba company-ga ka iibsaday laakiin caawa waxaan ku hayaa waxa weey inaad noqoto adiga company-ga inaan laynii kala dhaxayn inaad adigu company-ga toos ugu xidhnaato inaad xuquuqa adigu aad ka hesho waxaasoo dhan ayaan insha allahu tacaala nimihaya markaa naftaada inaad macmiil u noqoto waa muhiim sidoo kale macaamiil degan baad samaysanaysaa malabkii oo kale dad badan oo baahan baa jira personal care dad badan oo baahan baa jira iminka inta halkaa shaashada kaaga muuqata kaas waa shaamboogi kaa kale waa daawadilka kan kale waa saabuuntii kan kale waa saabuun kaloo liquid oo family oo dhan baa isticmaala creamkan waa daashi collagen ka samaysan maasha Allah tabarakallah kaana waa conditionkii shaambadii way labadaas ku eegay halkaa waxa ku qarsoon waa deodoronadii ma qof aan u baanayn baa jira walaalayaal dhamaantood wax loo wada baahan weeyaan okay intan maay way badan yihiin alaabta company-gu maasha Allah tabarakallah marka macaamiil intan u baahanna waad yeelan doontaa oo iyaga qiimaha macmiilka aad kaga iibiso adigana qiimaha jumlada lagaaga iibin saadabteed faa'iido fiican ayaa halkaa walaalo ku jirta insha Allah tacaala qodobka kale waxaanu kula diyaarin doonaa kooxdaas oo iyaguna company ka shaqaysanaya oo aad wada shaqaysanaysaan biidnillahi kariim 5 qof ugu horeeya ayaanu kula diyaarin biidnillahi kariim haddaba walaalayaal company-gan qof kastoo riya leh waa meel horumar ka gaari karo halkan waxa kaaga muuqda sawirkani marar badan bay gabadhan walaasheen ku guuleysatay hadiyadahan abaalmarinta laakiin markani waa 2020kii weey waana hadiyadii ugu qiimaha badnayd ee company-ga ay ka hesho sanad kasta markuu dhamaado company-gu wuxuu bixiyaa abaalmarino waaweyn buu bixiyaa marka qof kastoo riya leh waa meel uu gaari karo $420,000 ayaa halkaa ku yaala oo ku qoran weligaa miyaad aragtay qof Soomaaliya oo hadiyad intaa la guddoonsiiyay miyaad aragtay walaalayaal miyaad aragteen bal hebel dhaa weligii miyaad aragteen company nuucu doona ha ahaado adduunka meeshuu doono qofkaasi ha joogo $420,000 one day gudaheed lagu abaalmarinaya arkay husi ani maan arag waynu ambalayna hadduu jiro okay miyaad aragteen hebel bal soo qora oo 400,000 lacag ku dhow la guddoonsiiyay hal mar maya soo maaha haddaba company-gan dad ka badan baa jiro la guddoonsiiyay intaa gabadha walaasheen
اوكي waxyaabo mucjisaada oo waaweyn baa laga gaadhaa company-gan laakiin wacayo maskaxdaada ka saar ma gaari karo maskaxdaada ka saar because haddaad maskaxdaada geliso ma gaari kara anigu haddaad geliso markaaba naftaada qayb maskaxdaaba ayaa qabanaysa qaybtii powerka lahayd bad powerkii ka saaraysa awoodii baad ka saaraysa awoodii markaad ka saarto sidaad aamintay bay noqonaysaa okay waxaad naftaada u sheegta ayaa muhiima naftaada haddaad positive u sheegto positive aad noqonaysaa you can do it maybe it's possible sidaad u qaban karaa how can I do it yes ma gaari kara meeshaana ma gaari kara gabadha Soomaaliyeed inagama aqoon badna inagama waxaasan yani waxa laga wadaa wax weeyaan haddaad leedahay riyo haddaad leedahay hami haddaad caawa company-gani waxa halkan ku soo geliya ay tahayna riyo aad leedahay aad xaliso oo hami aad leedahay aad xaliso haddii aad leedahay ilaahay idinkii waad ka gaari kartaa waayo dad ka horreeyay baa sameeyey oo kuwaasaad ka mid noqonaysaa insha allahu tacaala haddaba waxaynu soo gaadhnay qaybtii ugu dambeysay company-ga warbixintiisa qaybtan waxaynu kaga hadlaynaa sidee baa loo bilaabi karaa ganacsigan oo looga mid noqon karaa walaalayaal waxaa laga rabaa marka ugu horreysa qofka inuu shirkadda ku soo biiro marka ugu horreysa waxaa laga rabaa si aad company-gan aad uga faa'iidaysato oo waa inaad iska diiwaangeliso marka hore waa inaad xubin noqoto oo company-ga ma garanaysaa systemkiisa aad raacdo ayaa la rabaa diiwaangelintuna wax lacaga maaha ee waa bilaash markaad isdiiwaangeliso alaabtu waxay kuu noqonaysaa qiimo dhimistii koowaad baad heliyo 5% ah markaad hesho haddaba 5% waxaa lagaa doonayaa ganacsigaaga inaad ma garanaysaa heerka koowaad aad gaadhsiiso oo aad noqoto xubin buuxda oo dhammaystiran hadda markaad isdiiwaangeliso macmiil baa tahay diiwaangelintuna lacag la'aan weeyaan 5% qiimo dhimisana waa lagu siin taasi waxaa lagaa rabaa marka inaad u gudubto heerka koowaad si aad u hesho faa'iidooyin iyo xuquuqo badan aad u hesho haddaba company-ga waxaa laga gaadhaa 4 darajo darajooyinka waxaa lagu gaadhaa cabir la yiraahdo CC baa la xisaabsadaa haddaba CC-gu waa lacag u dhiganta lacagtaada maadaama company-gu uu ka shaqeeyo wadano fara badan oo isticmaalaya lacaga fara badan si ay dadku isku fahmaan ayaa lacagtan looga dhigay oo CC loo sameeyay maasha Allah haddaba halka CC markaad cusub tahay xarunta waddankeennii waa $273 weeyaan Djibouti markaad joogto waa 48,500 meelahaas weeyaan Kenya markaad joogto waa dhowr iyo 37 meelahaas weeyaan Kenya markaad joogto waa 37 meelahaas qiyaas ahaan markasta waxa weeyaan alaabtaad gadanayso haddaad 200 gadato haddaad 300 gadato haddaad 400 gadato wixii aad iibsataba waxaa lagugu bedelayaa maxay CC baa lagugu bedelayaa waayo dadku waa luuqadda yaqaanaan ee la isku fahmi karo weeyaan maanta adigoo